بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي، waxaan bilaabaynaa darsigeennii insha Allahu tacaala. waxaan jeclahay intaan darsiga bilaabin أخونا شيخ موسى فارح حسين وسامع جاموزه marka insha Allah wuxuu inoo sheegay qadiyada qudus anuu intuu inoo sheegay xukuma darayo si fiican buu inoo sheegay, laakiin laba arimood oo qadiyada ku saabsan baan kelmad yar kornaya. waxa weeyaan ikhwaani fillah, muslimiinta bariyahan dambe waxa ku dhacday wax yiraahdo jab qalbi oo ahayn jab askari. muslimiintu waxaad moodaa inay bariyahan jaban yihiin, cabsoonayaan. marka insha Allah waxaan rabnaa maaratay inaan maalin muxaadara caama qabano oo macnaheedu yahay alhaziima nafsiya wax dhacdo inaan insha Allah nado ka qabano. dadku markay jabaan psychological ahaan hadeeto waxba haray ma jirto. marka sidee looga tagaa jabitaan, looga hortagaa jabitaanka psychological-kan maalin muxaadara iyo nado iska imaanayo culimadana insha Allah taala masjidkeena ama meel kale aan ku qabsan doonaa insha Allah taala. taasi waa mid weyn. midda labaad, qudus, dagaalka qudus waa dagaalka masiirka weeyaan. dagaalka qudus waa meesha gabagabada weeyaan. marka gabagabada waxaan uga jeedaa waxa weeyaan nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa weeyaan fi musnad al-imam Ahmad buu ku jiraa, kayfa bikum, bal ka warama waqti aad idinku degan tihiin yaa adceed baxa wabiga Urdun, yuhuuduna ay degan tahay adceed dhaca wabiga Urdun. asaabi xadiisku leeyahay isku markaa muxuu ka sheekeynaya wax dhici doona goorba yuhuud markaa macnaba malaba, bal ka warama rasuulku waqti aad degan tihiin ninku yaa dhinaca maaratay bariga, iyakuna ay ka degan yihiin galbeedka, hay ka degan yihiin wabiga Urdun. deegaanka maanta waa sida Urdun waxay ku taalaa bariga, Israa'iilna hagee joogtaa galbeedka, Falastiin dhulkay qabsatay, wabigiina saas ku dhex maraya difa algarbiya Soomaaliya lama dhaxlo. okay, halkaa ka warrama buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waqtiga warkaa bidhaadeen oo ma dhici doontaa. saxaabadu yaa bay dhici doontaa waxaas way dhici doontaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam. marka insha Allah taala waa meelaha nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa imid waqti isku dhacdaan yahuuda, saxaabadu way fajiceen isku dhici doonaa. wuxuu yiri dagaal weyn baa dhici doona, laakiin dagaalka wuxuu noqon doonaa xataa geedaha iyo koonkoo dhan ininkeena la jiraysaa. caalamka wax kasti muxuu oranayaa yaa muslim yaa cabdallah ilaa geed un baa diidi. geedka maxaa dhahdaa shajaratul gharqad. okay, xalay waxaan akhrisanaya taqriir zaytuunka geedka zaytuunka dhado Falastiin baa la marwa ka adduunka iyo Sham waa la gooyaa maaragtay soo la gooniyo oo marayaan bahashu xaga xogta marayso watiini wa zaytuun la gurayaa yaa waxa dhada tagyiirul macaalim waxa jira. dhulkan inay dad muslimiin caraba lahaan jireen baa la bedelayaa. marka waxa la sameeyaa macaalim cusub oonan kamid ahayn dhulka taariikhda kamid ahayn. marka insha Allah taala qadiyada waa inay dadku la socdaan على الأقل sida aad ula socotiin yaa dhacdooyinka dhulkeena ka dhacay reeraha, bal inta uu mustawaha uu soo gaartay way ka weyn taariikhdu waa qudus waa caqiidadeena weyn. على الأقل aad ula socda qadiyad caadi ma aha ikhwaani fillah, caqiida weyn insha Allah taala. waanu ma hadnaqay anigu ninka dhacdo Trump anigu ma hadnaqdeen ma hadnaqan لأنه wax fiican buu sameeyay, dad dhintay buu toosiyay oo wax kastiba iloobiyo hurdadii ka sarakacay oo bariyahan dambe iyagu isdirbay isku maqnaayo dhiig sidadinay yaa yara joogsaday warmaano ku isku dambeynay bal halkan soo jeesin. marka ninkaasi risaaladu way qabtay yaa banabaxad saaka ka socday iyo shalay ka socday magaalada wadanka Turkiga waa غير معقول yaa isaga oo boqorka Bahrayn uu wafdi diray oo Israa'iil u diray oo mahadnaqayo in Qudus la siiyay boqorkii Bahrayn
wafdi buu diray culus inan yaroo turkiyana muxuu lahaa intuu soo joogsaday meeshuu lahaa wallaahi ma saamaxayno qofka waxa u hadli kari waaye markaa baan xasuustay aayadii qur-aanka wain tatawallow yastabdil carabtu ilahay la hadlayay wain tatawallow yastabdil qawman غيركم إلهي تركي ونقول بدلي يا باكستاني يا اندونيسي يا هندي يا بدلي ثم لا يكونوا امثالكم يا افريكاني ان شاء الله تعالى بدلينا ان شاء الله تعالى هذا اسكت داين عقيده رسولك انك حنبارين صلى الله عليه وسلم بلال يا سلمان يا صهيب حنباري باشا ان شاء الله تعالى لكن انا عرفت دي waa ku jiray way fiican qarkood okay إخواني مركز وحن بلابنا عشركين إن شاء الله تعالى إلهنا وافجه أوكي قاعدة ما أنت هرا صوري أنا معي هيد لا مصاغة للاجتهاد في مورد النص ديو لباطن بقى سمين أوكي ما معنى إن هذا الحمد لله اجتهاد كانوا نكيح بدك صورنا كم نقولنا إن شاء الله سديدي صدنا ندي بغيرها أوكي لا مصاغة للاجتهاد في مورد النص ما عنتميس إلا اجتهاده هذو كل يلا محن دهني نص وحلمتها قاعدة الرضا لا اجتهاد مع النص لا اجتهاد مع النص واشي الناس كنا إن شاء الله كمان نقولنا قاعدة كصوص بحيسان بلابنا ما توتن الاجتهاد لا ينقض بمثله الاجتهاد اجتهادكم لا ينقض يا لقم بريو بمثله مثل سجل مذا اجتهاد ما بريو اوكي قاعده هكذا طبعا الاجتهاد لا ينقض بمثله هو مثله ومثل لمذا اوكي قاعده دغيست شرح القاعده كو يا فرتن في المسائل الاجتهاديه ابو شيخوني رحمه الله الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه الوجيز في شرح القواعد الفقهيه في المسائل الاجتهادية مسائل اجتهادية مسائل مركا محاوك لبحي صاحب مركا أخردين مسائل قطعية هي مسائل اجتهادية مسائل قرآن كو هي حديث كالنبي قوي كقاتين قرار عد اونا الدلال أبهنين قطعية صلاة وافرك على الظهركو دو خطر نفسه بحدا لابا نقطة كور ما نقسلينها ساقوا باسك هالله hadduu midi soo baxo hada uu gabadh iyo wiil wasmeena dhaxalkooda haduu naga radana daga dameeraad ku maqlay weeye dhageysan mayno limaada liana maxaa halka ka hadlay nusuus cad okay masaa'isha kala maxaa masaa'il ijtihaadiya waa masaa'isha ilaahay ugu talagalay ina waqtiga islaamku la socon karo buna harin waa ijtihaadiga weeyaan okay في المسائل الاجتهادية التي تاسو يسوق أو يسوق الأقليه أي عنتميس فيها دحديدا الاجتهاد اجتهادكو تدالكو فقيه قليو عالمك شرعي وين وقليو إذا هدو اجتهاد كدالو فيها مسائش عن شاقني المجتهد كي مجتهد كها مجتهد كها صوم على الناس ما الله منه وخرج فيها وكسو صارو برأي صائغ عنتميا فلا ينقض أي يبطل لما بورين كرو باجتهاد آخر اجتهاد كلا لما بورين كرو صائغ أو صنع عنتميا مثل الاجتهاد الأول أو سيدي اجتهاد كي هوريتا أونا أوكي إمام النووي رحمه الله بالرأي كتغي إمام الرافعي بأسنا اجتهاده رأي كله كتغي إمام الرافعي رأييسو مو بورنا يا إمام النووي رأييسا ما هو يعني رأي اجتهاد فقيه والله خلاص أوكي تاسوا ميد وين كما waxay la mid tahay oo kale low haduu xakama xakumo xaakimun qaadi amba xaakim qaadiga wada xaakim ma hakim maamuli ma waa qaadi weeyaan fi qadiyatin qadiyad bu xakumay sharciya oo loo soo bandhigay bijtihaadihi nas cad ma hayo laakiin nusuustii buu ku dhexdaalay ijtihaadkiisa buu ku xakumay bi hukmin buu soo saaray muayyanin hukum la og yahay mas'aladu waa sida buu summa tabaddala summa kadib تبدل وحاس بدلي اجتهاده اجتهاد كيسي فيها مسألة ديون يدو بس بدلي فلا يجوز لما أقول له يسجل لما أقول يسجل أنا شيخا أن ينقض إنه يبرس حكمه الأول حكم كيسي هره ليحكم باجتهاده الثاني سيقول حكم اجتهاد كيسي لبعض اجتهاد كان لبعض حكم كي هروقاتي مبرنسا إذا ما برنسو
الذي يدو هو وحيهد مثل الأول تان إمك يتيهر ومثل الأول هاي كلمة من حيث إنه اجتهاد لبضوا محي واجتهاد لبضوا محي وصائق واجتهاد لأقولها يعني اجتهاد لأقولها أوكي كلمة بين الشيء علمية اجتهادك وحويان اجتهادك أن يصدر وأنه كصبح يا من اجتهاده كيمانيا وأنه كصبح من شخص وصل درجة الاجتهاد كو وأنا كان هالله في مسألة سائقة فيها الاجتهاد مسألة اللي أقول له اجتهاده مدة صدحات مدة على وجهها مدة صدحاتنا ومحي وإنه إلى لي شروطي قفك مجتهدك إلى لي صدح ده حدا إلى هذا ومجتهدك وهذا الله أو مسألة دي قبتي أكو خلدان هذا أم باكو صحسن هذا ومقبول أوكي هدو خلدان مجتهدك ورا مجتهدك هدو خلدان مدام يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم نك حاكمك هدو اجتهاده فأصابه وصوابته فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد أجران كم حي اجتهاد كيف أجر لبع إنه اجتهاد لأنه واجب يكون تسير اجتهاد ما دام قد بالحظة سيد أنك أي نقطة هيدتك إن يعني اجتهاد الجارين حين نقطة هي اجتهادكم حرام إن الاجتهاد لكنكم ما اجتهادنا هذا مركز تبارك فردنا ما اجتهادنا وحرام إن اجتهادنا لكن السجسة شيخ مجتهد الجارين ما واجبكم إنه اجتهاد خاصة هذه مسألة داس يسقوا وقرنوا قف الوقرنين أوكي مركز أجر بكالة لا محوها لها أجر صوابك هدو خلدمان أجر اجتهادكم بهالها خالد كيسي دب اللي قام قريو رحمة إلهي بكمثال إن مدة سلامكم فكر طالب ضريا الموضوع فكران أوكي كما صدا لا يجوز أن لو أقولين لحاكم آخر قاضي كله أن ينقض إنه بريو باجتهاده اجتهاد كيس أو كبريو ما حكم وحي وحكم به إسقى عشان يقول حكم الحاكم الأول حاكم قاضي هره باجتهاد إسنا اجتهاد سكو حكم قاضي باجتهاد كو حكم مسألة أنا لقوا كان مسألة ده وحال هذه مسألة لقوية دماتي وما فريسين الحقوق خاص ودم هذا الشيخ ما الحكم الشيخ بحكمها ودم اجتهاد بحكم عالمها خلاص ودمت أوكي هذه لكن جرت الدولة الإسلامية oo maxkamadii taraatiibtii samaysay oo adigu aad fadhiday koobaad oo laga soo qaato appeal oo rafcaan oo tii labaad la yimaado oo adiguna qaadi ka tahay wad aqaa wax xukumaysa ama wad burini ama wad ogolaanaya adoo nusuusti raacaya laakiin hadaad mas'alada xukumaysa ma sano ka hor oo dhamaatay haday ku yimaadina ku dhahdeen adoo sheekh oo mujtahid gaaro xaakima arintan gal hebel baa galay ahaydo waxaad sheegtid ma burinayso wuxuu hebel galay خلاص waxay ka qabanaysaa ما جرت ما دام أنا حاكم كورن أريد بري هذول لكن مدحوينه كور هذا أريد أوفريسو أو هبل بحكمه أدو نفريسو حكم هذول هذا أمر بها جت الدولة دي وشرعية مركب برين كريسة بك إن شاء الله وأنا أساس نقرأ قرن أوكي لأنه محايلي لا امتياز وحك قدوية مجرو لاجتهاده اجتهاد كويسو سميه على اجتهاد القاضي الأول اجتهاد قاضي هو رسمي وحد قدو أنت هو مجرو لو دينهم مشاهدين باتين ما دام كلاهما لبدود وأيهين من الاجتهادات أي كسب بحد أرنتاس دلالة السائقة دين أقبل شيء أم بأسائق عنتما يستشرع ظهر المقبولة دين أقبل شيء أوكي أنت أسمع شرعي قاعدة أوكي دليل هذه القاعدة قاعدة محاول دليلها الاجتهاد لا ينقض بمثله محاول دليلها لكن دليلك وشاق النشايا ودليل هذه القاعدة دليلك القاعدة نحويا الإجماع ومضى إسلام كور دن يا إسكو تكت إجماع وحيار كان أبو بكر مسألة حكومي وبركو أبو بكر ننتهي عمر مسألة كلا حكومي نفس القضية هي إسكو خلافين أبو بكر يا عمر صحابة يordنا ويقبلين إذا دليل متى يمشي دليل معها دليل الله سعود ولا وعمر وأبو بكر بس زي ما حدا ويعتمش هل كان عمر لكن عمر وأكبر علي بقى مسألة وكدوا عثمان صحابة يأركن يكو وذا النول عمر حكم مسألة ابن مسعود مسألة دي كلا حكم هو المجتهدين عمر با حكم ابن مسعود ما كلا مرة ومجتهدين أوكي مركا هنا أنا ميد أي برونين محاول دليل أدرون محاول لسه إجماع قالوا إجماعي أيوه إجماعي خير القرون صحابة النبي صلى الله
وما صار عليه يوحي وكسعدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد حكم أو حكمي أبو بكر رضي الله عنه في مسائل فربضا بو حكمي وخالفه وحاسك خلاف عمر مسائل اجتهادية رضي الله عنه فيها أرنتي أبو بكر حكمي بس خلافي ولم ينقض لكن مبر عمر حكمه حكم كي أبو بكر مبر اجتهاد مكاني هل كي لكن مبر سيدي اسكتاي وعلته محل مبر واي علته ومحي صابته ومحي بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول اجتهاد كاللبادي كم حق بدنا اجتهادك هراء وأنه يؤدي وحنا كان سنة يا هدي لبربريون كورن شاخي وحكم هدي شاخي لو كدو بربريون كورن ما حد عي وأنه لا يؤدي وحكان إلى أن لا يستقر حكم بينه دقي وايدي هذا الصومالي ده والمسألة ده قيل نقول ضدنا قيل أم ده عن ما تورد ده وجبي ده سبقنا ماشي زلادة بقى ولا حصلنا وحود فقهوني كما شقينا يبارة السوق معها وفقه الدولة اللي حكومية دولة الإسلام الوجري مركا waxaa raba dawladdu waxay xukun saartay inuu deganaado istiqraar inuu yeesho مسألة ولا حكومة وكاس خلاص لا ما هذا كريم وفيه هذه الساجة مشقة جديدة والله شديد تذكر مشقة علص ما كنا أو ده كبشيخ سو برني مسألة دي ما ما نسوا أوكي تاسينا واحد تناقص عجيبا تاسي وشيخ تنوس الاجتهاد القديم شيخ وحولنا اجتهاد كي هراء او ددالي او نصوصتا ايغي او قرآنك ايغي او سنها ايغي او واقع ايغي او wax kastaba eegay ee uu soo saaray xukun la yuqayidu ma xidhxidhayo saaxiibkii inuu dib uga laamo war bariyo rasaban fatwada hadda ma xidhmo oo ka noqon karaa aniga sheegay imaam Shaafici wuxuu ka laamay sulusu madhabkiisa marka loo qaybiyo saddex meel ahaan buu markuu Ciraaq joogay markuu Masar tagay u bedeli waa sulusul madhab wuxuuna hore u arag buu arkay maxaana wuxuuna maqalna uu maqlay خلاص علمي buu helay cilmiga ijtihaadka kan marka ijtihaadku ma xidhayo takaleeta waxa jira Sheekh Qardawi baa laga yiri wuxuu ku fatwooday kitaabkiisa al halal wal haram waa kitaabkii hore u qoray wuxuu qoray isagoo 30 jir meelaha u dhow imikana waa 9 wuxuu yiri bariga markaan kitaabka qoray wuxuu ku qoray aaraa fara badan oo ka soo laamay sigaarka kamida buuriga kamida heesaha kamida waxyaalo badan oo bariga oo ka soo laamay jirto xijaabka kamida oo ka soo laamay jirto shuruudda xijaabka suwarka marka maxaad uga soo laamatay balad laba shay nusuus aan bariga maqalbaan maqlay imika soo jir baan marka imika maxaan maqlay nusuus iyo xadiisaan aan bariga aan maqal cilmi badan baa kordhay laba markuu qofku dhalin yar yahayna wuxuu waa u degdegaa markuu weynaadana u degaa marka waxa igu soo biirtay buuri deganaashihiin okay marka waan degay buuri fawradii ma jirto laboodki xaraam maxaa ku badan reedamka wadayin xaraam la joos bid'a taa badan laakiin marka la weynaado arinta laga fiirsaa badan ha marka waa caadi ya marka boodintii baa iyaa ka haya yaranas saabu sheekhu ولكن وكان شيخي قال مارت سيوض رحمه الله الاجتهاد القديم اجتهاد كي هوري لا يقيد يا محريو يا قيد كمان ترى حتى قيد عياك دمك الصومال هاكا عرض سويد بكون هذا لا يقيد اما مدبريو محريو صاحبك في المستقبل كانوا فكره فله وحا أسوغا في المستقبل لمستقبلك أن يقضي باجتهاده الجديد إنه جديد بالجديد اللي يمد هو سوغا انت المخالف كاسو خلافه الاجتهاد القديم اجتهاد كيسي هوري في نظير القضية الأولى أو مت كسو هرجد قضية دي هوري مت نظيرها يكان قضية دي هوري حكومة ومدون مسألة كهالله وحكا الله من كريا ولا يتقيد كمان حرمي بما حكم فيها من الماضي في الماضي وعمركي هوري كو حكومي كما حناني وهذا تاسي واني ما انتو نيغا ورمي قالت maxay ahayd dhaxalka Soomaaliya dhaxalkii ani niga ورمي مسألة ده وهذا ما فعله واتي سمي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية إرثية دحلة مشهورة لا يقانو عرفت لو يقانو باسم المسألة مشتركة أما مشتركة مسألة دي الوداجي وماشي دلوقتي كده عايز معاهد
inamo walaal ah oo uur hooye ah iyo inamo walaal ah ikhwatun liabin wa ummin oo uur abi uur hooye ah shaqa labadaas ayuu xukunka cumar bin khadaab qolo qadiyey wuxuu qadiyey tii hore markii hore kuwii maxay ahaa uur aabbaha iyo uur hooyaha ahaa yuu qadiyey wuxuuna siiyey kuwii maxay ahaa uur hooye ahaa xukunkii waa lagu kala socday hooyadiina way heshay maaragtay odagiina uu helay walaalihiina way heleen okay ninkii nisfu qaatay zawjkii islaan baa dhimatay ahayd hooyadiina waxay qaatay sudus 6 meelood oo meel bay qaadatay suluskiina waxaa qaataan odhanay kuwii uur hooye ahaa dhaxalkiina waa dhamaaday waxa ma hadhinba okay waa iska socdaan mas'aladii baa dib u dhacday qof dad kale ku dhacday waa nafs alqadiya sidaa xukunkiiba iska garanayaan raggani inuu cumar sameeyey markii laakiin caqligooga uu diiday xukunka cumar sameeyey ijtihaadka waxay dhahdaan cumar hab ka soo qaad wariyaa markuu fadhiistay kursigaba anna abaana aabbahayo inuu yahay xajara dhagax aabbahayo dhagax ka soo qaad wa fii riwaayatin waxay dhahdeen ka soo qaad ya ximaaran dameer ba ka soo qaad riwaayadka waxay dhahdeen markay dhahdeen dhagaxa waxay dhahdeen fil yami biyo ku jira badda ku jira ka soo qaad ولذلك مسألة waxaa loo bixiyay xajariya ximaariya yamiya magacada isticmaaleen iyo loo bixiyay iyo umariya mas'alada waxaa loo bixiyay iyo umariya umar ka soo saar اوكي عرفت باسم المسألة المشتركة او المسألة الحجرية او المسألة العمرية اما قاعد لقضاء عمر حقوقيسي قضاهيسي ابن الخطاب رضي الله عنه فيها يدا إذ أنه قضى وحقوي بمشاركة الإخوة الأشقاء ولاله أباها إن لو ذاقيان لأمه للإخوة للأم في ميراثهم سلانتي دمتي هو يدا أوضا أهيد لبضبا لكن هكا أباها إلا بك الأهيان وذاك إمك أوقب وكوة دنب أبوها ويك أبوهين ولو ذاقيان حركي مركز دموسا قوي ما ومحو قوي وهو محوق مكا عمر فيها إذ قضى وحوقه بمشاركة الإخوة الأشقاء الإخوة بالأم وهو الثلث ثلث كيبو إيه قيب تبايا ثلث كي حري نظرا لاستغراق فروض فروض الأصحاب الفروض التركة ما حد حاجرته أنا قلت شمالته وحاجرته فروض الرياضة فروض أنا ما لوج ويا جرا وبدأ تقارن طبعا قارنوا عليهم بجارسيان أوكي لبيه طبعا كان أصله وسديد ضمرة يمحون أفر رجع كواسا دحلك لقاء هذا اللقاء هو مهرا كوا عصبة الرضا أم بعصبة الرضا فلم يبقى للإخوة الأشقاء ومهر شيء من التركة باعتبارهم أيهين على قصة قضية عصبة إن عصبين أصحاب الفروض كما ردك حلوق وما وضدك دحلك كهلية دواشها كهلية والعصبة يأخذون وحيقاتان الباقي من التركة مركب أصحاب الفروض كاللاسية وحوقة قرآن كو حديدي أم بنصكها أم بسلسكها أم بسدسكها أم بربعها أم بسمكها أم بسلسانكها مركا waxaa la qaybiyo waxa soo hara ay qaataan iyagu qaarna waxay ku dhaxlaan farad iyo cusbay ku dhaxlaan qaarkood بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم markay qaataan dadkii loo fardeeyay wax loo gooyay فإن لم يبقى شيء من التركة hadii waxba hadi waayaan furuud wax ka soo hadi waayaan lam yaakhudhu shay'an maxay helayaan halka iska baxayaan وهذا ما حصل ووحي كدعي في هذه المسألة مسألة ده فقد اجتمع وحا اسكوي مد فيها مسألة ده زوج أضي وأم هويو وإخوة لأم إيوه ولاله أور هويا وإخوة أشقاء يورابي أور هويا فللزوج أضي وحو لبودي النصف ولكم نصف ما ترك ما سمع مهن وترك أزواجكم ولبودي وللأم محي لبودي السدس سدس محي وسيزيها لح ميلوضة ميل عبد الناصر سدس قال لي يا بنات مالها واس فهمتي وافكاغي سيزيامكم مركز waxa qadanaysa 6 meelood meel bay la boodeen sudus okay وللأخوة للأمنا maxay qaateen الثلث صدح bay qaateen ولا شيء maxaa waxa markaa waxba للأخوة الأشقاء ragi ilaaye abi hooyo baha ee hag hooyada wax ku heli lahayd taa iyo Umar iska socdo kiilo wadaada islaanta nimika wada kala qabay abiin ma qabay meesha ka xamaan qaato ijtihaad moot halka maray ka bixin summa xadasat way dhacday qadiyad miiraasun qadiyatu miiraas baa dhacday qadiyad maxaa dhacday dhaxala kal uula oo sidii hore una afartii baa dhacday
فلما رفعت مركي قد يدي لصو كر قاضي الى عمر بن الخطاب عنه اراد وحو دوني ان يقضي فيها انه حكمته حكم حكمي بمثل قضائه السابق الاجتهاد باهسته وحو ايانتي كو حكمي انه حكم دوري في نفس هذه القضيه قضيه نفتدون فاعترض والدي ايانتي maxaa laga yiri shuurada islaamka mid tahay quwad islaamka qofka waxa la siiyay isdifaac maxkamad markuu joogo maxkamad marka joogtid islaamka dhexdiisa waa isdifaacaysa ma dhageysanaysid muxuu yiri qaar baan maartay wadannada markay isticmaalku naashadee ingiriiskii baan haystay maaha iyo faransiiskii maxay qoladii kale talyaaniga iyo Ethiopia laamka wada amxaar baa lagu xukumay markay joogaan iminka dawladdan cusub bedeshay jijiga dir dhawi kala xukumadka halka uu qofku joogayo badhagadhagdha uu dhageysanaya wax laga leeyahay wax lagu xukumay dhageysanaya oday xaga mutarjima joor waxa laga yiraahdaa 6 bilood baa xadhig gashay waa laga yiri way waa lagu dhiibay waxa cajiib ah wadanada qaar kood ilaa imika tiiba socota qaadiga wuxuu ku hadlay afdad way lahayn dadkiina way dhageysanayaan ya mara maxkamad fadhiba islaam baa xukum islaam weyn ilaa soo joogsatay maxkamadda samaan u fadhinaa annagii tii xukumaysa hadasho waxa ka tiri arintaada waxa dib loo dhigay ma baan joognay bisha September October baa laga dhigay xukunkaaga islaantii waliska taagantay faransiis ba ku tiri faransiis tii qaadiyada dagana ayaga fadhida islaantii way daawanaysaa waxaan ku wariyo islaantu kuma fahmin u sheeg xeerka ugu qorno in lagu sheego af aan hayn af faransiis af carabi dastuurku wuxuu ku hadlay Djibouti wuxuu xukumay in labada af lagu hadlo marka ka joogo dadka ummad kale okay mid ki gaalka cad xusbi mid turjumo markii hore isma ka fadhiya keena ma joogo imika hooy waxa laga yiri bisha September October ya laga yiri baan ku dhisantii iyo hooy laga yiri subhanallah bas ka socdo way tahay marka waxa iska taagay waxa lagu yiri midna ma garanayso mashaakilka inay istaagto marka waxa dhada culimada islaamka qaar barada guumeysiga ugu xuni waa guumeysiga maxay laga qabso maskaxda marka af lagaaga dhig cilmi luqadda faransiiska marka lagaaga dhig cilmi amba luqadda ingiriiska lagaaga dhig cilmi amba talyaaniga cilmi lagaaga dhigo ee tiraajid hebel wuxuu yaqaanaa af talyaani iyo af ingiriisi iyo wadaad halkan fadhiya jiro wax bacbay oo ka khatarsan laakiin saddex ma yaqaano okay markii Djibouti aan xoroonay ba rag baa ka yimid xamar shahaadooyin weysita soo shaqo tagayno Djibouti asalku aan jiro Soomaaliya darteed shahaadooyin maxaa soo dhigay af ingiriisi ما شق ما يلبس بس شغله قوي فصل مهارات راسي ما جري سالس متوسط كلاس مارتي سكوك دحي وجامعه حسد الان افرض خوي عرايا ما كده صباح وي مادين يكو بالو وسيتا ازهر بك سو قاته الابت ما بدون سبب لغوري عبد بديه waa luqadii yani waxa la qiimeeyay marka maxay noqotay luqadii لان madax laga qabsaday ولذلك وحا كفجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ولاء wax bariyo adoonka yaa marka الحريه de tolme lahayn wuxuu nin Ethiopia laga keenay aan laga keenay Rome laga keenay iyo lama bixin wal xuriye qoladii ku xoreyso la toltahay xadiiska imika sax الولاء لمن اعتق فرانكو فون بنلو بخي افريكان بلو بخي فرانكو فون ماكرون بوضع حكم سعوديين انغولو ساكسون بيردو انغولوفون بيردو waxa laga wada xukumaa London qibladoodu waa London oo qolada Talyaaniga Rome Talyaaniga wada jeedaan ولذلك waxaad arkaysaa dadka af Talyaaniga wax ku bartay caasimada ay u xaga baxaan xataa u dhoofaan markay tourist tagayaan waage waa Roma reer Djibouti gaal leeyo may bari ka kar wada qolada kalena haga tagaan London waxa jira magac berigii dhalado garanayaan annaka garanay ragayooda waaweyna magac baa jira berigii loo bixin dadka England soo hablo loo bixin mid qana England ya iyo Berlin iyo Europe iyo ya waay ka mid tahay waa aqliga la guumeystay ka mid tahay aymiga alxamdulillah magacde badad ba xajin jiro xitaa habla u bixin jira Makiima dumar ma ka dhaajira iyo Madiina iyo kuwa imika soo noqotay saxwad iyo asma ayaa imika batay asma iyo xafsa iyo sumaya iyo alxamdulillah rabbil wa soo xurubina laakiin taas inayna keenin xorriyada kale Soomaaliyeed oo islaanta magacdii Soomaaliya la baxay yani iyadoo kamid yani xorriyada kamid tahay ina Somalization ku ina qofka ilmaha u bixis magac Soomaaliyeed walidalka anu ilmaha igu horeeyay Suhayb baan u bixiyay anigoo dhaqanka ilaalinay islaamka kii labaadna liibaan wa miisaami anu waa Suhayb bayni kana maxay dhig waa liibaan
labadeedii abtirsiin baan sheegayaa inaan ahay nin Soomaaliya laakiin ahayna muslim saxaabada islaam waa ka alla ilaaliya ma waxaas waa xorriyada ka mid ah madaxaan laga guumeystay waa inaan taas kala dhicino waa inaan madaxeena xoreyno waliba wadan Canada inuu ku fadhiino la ogol yahay waxa dhacdo kala duwanaanshaha dastuurka Canada nimka akhriya dastuurka Canada waxaan ka soo saaray 17 article oo waafaqsan dastuurkii nabiga Madiina sallallahu alayhi wasallam taxabada kubaad kowka wax weeyaan number 1 ka Canada waa meel dad kala duwan ay ku wada noolaanayaan hadi qadiya khatira jiddan muhaajiriintii ay matay ansaartii baa sii fadhiday nabigu muxuu yiri muhaajiriintii iyo reer Yasrib iyaa leh dastuurka iyo ka wada leh iyo man laxiqa bihim iyo wax kasto u yimaada hadhow tole ee hadoo firsaya ومن لحق قف كستو يمادا لما خدين waa meel la imanayo la soo birayo warqoon naga joojiyo nagu soo biran Canada ma jirto waxda naxnu wa antum ma jirta kana annaka iyo ininka ma jirta ma jirto al-ghayriyo waa kaas waa saameynaya islaamku uu baabiye isaguna naxnu iyo wa antum baabiye marka wax Canada waa wadan yani waa wadan cajiib weeyaan ya ilaahay baa indikana wadanka cajiibka الحمد لله اسكدها لكن هو قال كلمه وقاله اقول قالوا وارض دعوه ركي دعوه حتى هذا ها صعت ما شري درت العيال هي قاتل ورقه كندو ما شاء الله مركاسان كير قرون شكرا للسلطات الكنديه وري وانو مهنقيا دوله كندا ان عيالكيغي اسلامتيدي حاسكاي ورقدها سيسو مدلوكيني جوغي شيخ إني الود قالوا لقد كفرت بكلام واضح وقرنت ماشي كمان بس حكوا دايم ها ود قالوا يا شيخ داعيبته waxa ku khalaasa ma الارض لله ما garanaysa marka mid kale uu jawaabo ka yiri taa ma sheegin insha Allah siyaasaddu uga noqonaa ka yara dhaxgala sheekay dhaqankan Soomaaliga laba erey baa ka maqan لبي إريبا كم مغان أوكي وسنكيدا سوا شكرا إن المقدرة كقبض كسية مركز ما صنطه كو iyo markaad wax weydiisanayso qofka inaad tiraahdo loo samaxta ama fadal inaad tiraahdo labadaba dhaqanka Soomaalida kuma jirto ii banay baa ku jirto aan ku dhaafay gadrub ku dhaafay وين لو رجع في Soomaaliga sameeyay wayna noo sameeyaan wato ma hasantahay way jirtaa laakiin tani kale la yiraahdo loo samaxtay adoo raali ku daran adoo raali hatta ma fiicna adoo raali ma fiicna laakiin loo samaxtay ya silta play eri bixin wayna eri fiican la helo oo isticmaalana waxa jirta muhaadaro uu galay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil مصطفى برعة ونقانا مصطفى حاج اسماعيل تقاني الشيخ وين وحو يري نين باو يري بوري مالين مالين بو يري بوري قفه وحكي وركالي افكينكم جرتو لو سمحت نين عدان كنا maxaa ku tiraade intaas oo qof Soomaali ila hadashay shaab yishub umbuleeb BAC umbuleeb lacag C umbuleeb adoo maxay kuma wadaray buu afkiina markaa ma doonay buu wixii aan arko dhan wax noqotay afqalaad loo samaxta loo maxay xidhan khalaas adoo raali xataa adoo raali ma kala sameeyay murta adoo raali xataa adoo raali xoog jeeyay yaro ya Soomaalnimo ku jirto adeeg baadinimada ku jirto waxa soo ijtihaadaya Sheekh Salaaman insha Allah جزاك الله خير هاي اوكي مسألة دي وحكم يا اخو مارتي امامنا رحمه الله رضي الله عنه إمارة عمر الخطاب سيدنا أو تيهر لمدة فاعترض أحد الإخوة دي وقال يا أمير المؤمنين كي أور أباها يورها يا دي وقال يا أمير المؤمنين احسب كسوقات أبانا أباها حجرا نجح في اليم بد كجرا أليست مين أهين أمنا هو يديد واحدة بين مدغين أم واحدة فكيف سيدي يرث أدحليان الإخوة ولاله لأم أن هو يوداجيني ولا نورث نحن ونكون أدحلين كيف ونحن أنكم جميعا وحنا أمنا هو يد واحدة ونزيد عليهم وحنا كدرنا بالأبي أبا كسي ديرنا هاي
فأخذ عمر رضي الله عنه وقاطع عمر بحجته عمر وحوها وقافة لجوجيو نص الدين لو شيء محوس مني ويشتاقين وأشركهم وحونا كغيب قليه في ميراث الإخوة لأم ميراثك وكدري وأساس قضاء عمر مركا عمر أساسك قاتل رضي الله عنه هي بمشاركة الإخوة ولاله الأشقاء أور أبي أور هياها للإخوة لأم كي أور هياها بميراثهم سلسكي بلا قادرين اشتراك الجميع محين قاتل بالأم الواحدة هل كابي كودا كان وهي سبب توريثهم ده سبب الحركة كتاب محايد اسكو هي مع امتياز الأشقاء ولي واحد يكون أشقته بقوة قرابتهم للميت وميت يوصل محي يوصل بإدلائهم إليه بالأب أب الوداعان وإذا كانت هذه قوة قرابتهم للميت هذه قوة قرابته أي تيميتك لا تزيدهم إن أسياد إرسا دحر هذه أسيادين ولا تقدمهم أين كهر ريسين على غيرهم فلا يجوز لما أقول أن تكون نقطة سببا لحرمانهم إن سبب نقطتين لو دي من الميراث وعدم مساواتهم ولو أقول أن لم ينقض بالإخوة لأم أوكي أنت سواء أنت ما تروح شغلات معها ولما سمع الإخوة الأشقاء مركب مقلان رجي هراء في القضية الأولى مركب مقلان بقضاء عمر الجديد جاءوا يمدين عليه كركي سوي يمدين معترضين يهجور جدا وطالبين ضلب أن يورثهم إنه دحرسي بإشراكهم مع الإخوة لأم رجي هراء العتي كسر علي وأنا كيمك نصي رج صادمك حكمتين كما قضى في المسألة الجديدة شدوا حكم مسألة عصب فقال وحود هاي سيدنا سيد كيني عمر كلمته كلمة ديسي التي تاسو صارت نقطة أصل نقطة وقاعدة هي قاعدة لغو نقمو محولي تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي تا أيانتي ما نكو حكوني نسكو انت أركيني نكو حكوني تنوى تاني مكا هلكا كو دقاقة بك يا شيخ من تطبيقات هذه القاعدة مركا قاعدة انه طبقاتي شيخ علمي كمثلا انا ما تشغل ومن تطبيقات هذه القاعدة وحكمتها وحيالات القاعدة اللي طبقها لو هدون حكم الحاكم كي وقاضيها بشيء شيء ثم كدبنا تغير واسبدل اجتهاده دال كيسي لا ينقض حكمه الاول حكم كيسي ولا لو برنيون ولكن هدوه له وحا أسوغن هساهاتي أن يحكم في المستقبل إنه المستقبل يكون حكم باجتهاد الجديد كما لا يجوز سلو أقول لحاكم حاكم آخر كلا أن ينقض إنه جبي حكم الحاكم الأول وجبي لما أقوله بمحجة محوها دلوها يستها مخالفته رأي عن خلافه لأن واقع قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أوكي قاعدة محيط الاجتهاد لا ينقض بمثله halkaas waxay niga daweynaysaa in sheegaya dhulka marka joogtiin ijtihaad badan baa jiro cilmo way ku hadlaan okay sheekh weyn oo maxal ijtihaad isagu dadaali karaya ya marka dadaali karaya leenahay waa cilmo fara ku taraysa waxa halka gaar dadaali karaya marka uu soo saaro mas'alad ijtihaadiya sida sheekh Khasaawi dhado ee jooga Mareykanka ijtihaad buu soo saaray أنا ما قرأنا يقف يعني كندا ما يقف يعني مش صار اجتهاد قاري ما يقولون لكن مريكا محمد مغلي شيخ قاسم المغلي صاوي العضو أوكي مسألة اجتهاد مسألة الربا بانك لا عتلقى قادرني اجتهاد بولي وأنا ما نتي هاكو خلنا نسوين أو إن أنا اللي قادن كرين أنت راسك بأي حال واحد دوني هالنقطة لما قادن كرو ضرورة ملئ أوكي شيخ قرضاوي وسوى مجموعة أوروبا حكومنا هو سو صاري إن الضرورة اللي قاعدن كرو ربطها وحو كقري مسألة ده صدن إلا شان صدن صفحات يوصل كقري سوى قرضاوي ردينها لباتن بوك أو فتوضع وحو كشجعها هلك أو قرضاوي مسلميت وفريه علمها أقوالها إنه أرض جيسيها إنه نكهل ذكرين لكن وحكو خلافي مسألة كو لبا صدح أفر شان ليه ودي وحنا أخريه جوابتي قرضاوي مسألة دي بأخريه وحولي نكاسو مجتهدة ودذاب بدن وعلمي بدن له مسألة ده هالكا بيسكتاجي لكن وحو يقولوا إنه هالكا يسكتاجي ساعد رادد رأيي كما تنازل عنكم دي بوقات هذا نصاوي الشيخ
waxaa buu yidhi sidaa buu yidhi laakiin waxbuu iga soo tanaasulay laakiin weli hadda ma aan tanaasulin Qaradawi baa dib u qaata haddana wuxuu yidhi waxaan kuu deenayaa waqtigu inuu wax kaa saxo intaasoo ka baxay way qoran tahay waxaas laakiin waxaa lagu sheekaysanaya luqada waa nin wanaagsan waa sheekh waa calaama waa mujtahid waa usluub marka waxaa akhrisatiin ha moodina inay culimmadii madaxa isdareen maaha waa intii loo ogolaa inay ka ijtihaadaan bay ka ijtihaadayaan adiguna maxaa loogu baahan yahay laba shay iska ilaali inaad labada sheekh marka aad kala raacaysid ilin dilka kala raacid ma jire hawada iska ilaali hawa ku raacid kan wallahi ila shaqeynaya kan ani la shaqeynayo taa iska ilaali waxaad tiri meesha nafsiyo yaalan ijtihaadka lama ogola taasi ribadii nasba yaalay إن شاء الله شغله ما نقرأ ما تقولوا توان معنا وحنكون معنا إن النسكة الاجتهادي كريه النسكة على الاجتهادي كريه سوى نسكي يالو سوى نسكي على الاجتهادي كريه أوكي وحال الاجتهادي كريه حتى النسكيو يالا أو صحيحة أو قطعية أي حاكمك اجتهادي كريه سو اجتهادي كريه عمر بن الخطاب محوسمي رضي الله عنه محوسم عمر الخطاب wuxuu sameeyay markuu amiirka ahaa wuxuu joojiyay in gacmaha la gooyo soo nascad maaha faqط والسارقة فاقطعوا جزاء بما كسب نكال من الله ما كنت تنسى وانا اسمع حياه عد تو شروط له haduu dhaco maxaa la sameeyaa go عمر الخطاب buu joojiyay lama gooynayo gacan buu sanadan sanadka bixin caamul ramadaan caamul majaa sanadkii gaajada iyo abaartu ay dhacday maxay ku dhaceen oo joojiyay okay dadkii waxay u xadayaan baahi ma ijtihaadin lamana diidin ijtihaadkiisaas saxaabadii ma maxay ijtihaadsan okay tuugin baa la soo qabtay xaday maxaa xadeen waxan baan xadnay iqraar bay sameeyeen Umar ibn Khattab qaraarkii uu qaaday gacmaha ka gora ninka ka xadeen waa barkii u shaqeynayeen mid baa gacanta taagay wuxuu Umar maxaad u xadeen ku dar waan xadnay maxaad u xadeen ku dar maxaad u xadeen buu ninku wuxuu nasiiyay bal horta mushaarkiisa eeg mushaarkii baa la eegay adli kuma jiro dulmi baa ku jira Umar wuxuu yiri wallahi hadday mar dambe xadan adaa gacanta ka gooyn iyaka maaha saariqnimada ka jooji inay xadaan dadkani waxay ku noolaadaan si naskiyo yaalu ijtihaadi Umar سهم المؤلفة القلوب جزاك الله خير شهرا سهم صدقة سكده maxay isga dadka la asriyo sideed soo ma dadka isga qaata waxa kamid ah qolada qulubtooda soo jiita okay qolo waxa jirtay qulubtooda soo jiita nabiga waqtigiisi ya Uyayniyo ama ibn Uyayniyo ku jiray way qaadanayeen nabiga intuu noo dhan sanadkii bay imanayeen waa loo tuulayo hadaba أبو بكر بهدنا يمد وتولون عمر بايمد وسجوا سيون وأنا محمد مليدين دارين وكذا إلا قرن مؤلفة قلوب هاني سيمبول إسلام كهدي تو حكم يا شطبني ملبول هذا دو جلسين عقيدة لو جل هذيك لا تنهكاس كاميرا والسلام لكن قولتك إمك إسلامي صار سينته قالوا واحد يسمع عيون مؤلفة قلوب لو بحي وسك قادر يسون من واحد قادر النبي الله يمك عمرو اجد وحول كون غورمي نقوني عادي مؤلفه قلوب غورمي نقوني مواطنين صح نقوني كبا ما الحكم ما marka la xukumi ida amara sultan ninkii madaxa sultaanku waa madaxii muslimka ya bitibaa'i ra'yin ijtihaadiyin muayyan hadu amro in la raaciyo culimadu ijtihaadeen amiirkii wadanka xukumayay ijtihaadadii culimadu mid qaatay mid buu qaatay afar ijtihaad ba hor yaalay anu kana qaatay buu اوكي اميركي بقاتي ناس كم وري ماني لكن اجتهاد و قاتي wuxuu noqonayaa naskaas ijtihaadka ra'yi uu qaatay amiirku waajib uu noqon dabaqo maxaa isku imanaya isagoo ijtihaad ahaa fiqiya waxa ugu biiray wa ulil amri minkum madaxnimadii ugu biirtay okay kana la qaatin masalad baa jirta isaguna haween ku qaata maade waana ku qaata cilmi iyo aqli iyo diin okay waxa jira mesela mas'alad cunus ku khilaafsan waxa kamid ah gabadha wajigeegu maawra misawra ma okay maawro amni baa imata qadad amniya oo qaar baa umad waawro qaarna awro male qadad security imata gabadha wajigeegu waa in la arko hadii kale waa iska qarxinayaan madaxweynuhu wuxuu yiri ma hayna iska turto sida waddan lagu qasbay aan ku marayno wuxuu yiri daruurahaan nasarahan waa in wajigeega la arko
gabadha markaa maxaa waajib ku noqonaya iyadoo qabta inuu wejigu cawri yahay maxaa waajib ku noqonaya inay wejigeega banayso ay tusto amnigii ragii amniga ay tirada waa kaa hiblaayaan ahay qof kale meeyi haddii kale maxaa ka dhacay xamar oo kale rag baa inta soo xidheen niqaabkii yaas qarxiyey markaasi waxaas oo dhan marka amiirku haddii uu laba mas'alo ijtihaadi isagoo mid u eesho hagee la raacaya kuwa raacay baa la raacaya okay ma kuwa nimanka muslimiinta xukuumadda waxay doonaan ka sameeyaan waa halis baa ku jirtee oo dee iminka matalan masaa'il diinta ka hor imanaysa qaataan laakiin waa wixii saxa la sheegay ma qulna waxaan oranay fi alfaqrati asaabiqa faqradii iminkaan soo dhaafnay huwa waxa weeye idaa lam yakun hadduuna lam yakun qad sadara haddayna ka soo bixin amrun min asultaan ninka madaxa amar hadduu ka soo bixi weeye ولي الأمر يا مسلمين ترى حكمه بوجوب الحكم واجب ويحكمك برأي أحد المجتهدين لأن المجتهد رأيه سئل لقاته يفتوى ذا يسوونه أوكي الأصل في الحاكم نك حاكم كإسلام أصل كيسو معي ما تقال أصل كيسها وأنه مجتهد نقطه يا أصل كيسو أساس وأنه نقطه مجتهد أمي واحد قال حكم قوة فاتحة دقيقة الله يا مدح النواب ما سبحان الله العظيم أيانو قل الكافرون أخرين ماذا حان داودين قل الكافرون أخرين لا وروح مع ربه مسلم با لا إياك حفظها ودا قرآن يقان لا أعبد قرآن كبار لكم دينكم سوء ونحل هذين لكن وحاول وأنه مجتهد نقضه أظن مجتهد هنا وأنا متعلم نقضه متعلم هنا وأنا دينه حقيقة مركو إلى راد علماء كاسبا رجحي أنا مدحوينا كابل قادنا لأنه محايلة في هذه الحالة حالتها لا يجوز للحاكم لما أقول قفك حاكم كمثلا قاضي أن يحكم أنه كحكم برأي آخر رأي كلام خلاص مسألة ده دولة دي وقعت البرلمان كيف فريستي رأي قررين مثلا الدولة دي البرلمان كيف يدي أراد مجتهدين تكاسبا قررنا كده نقاعده إنه واحد جت واحد التقنين والشريعة فقه قال أرتيكل لو بديله فقه أوكي فقه بقى سوق هذا فقه شافعية ذكي حنابلة ذكي مالكية ذكي وحول سوق هذا وحويان مذاهب تورن وحاجرت مسألة أي دنك وديين ابن تيمية كودا خلافه مسألة دلالته طلاق ثلاث يقع وكدور هذا إسلامتي صد حديث مع كفر ودعي لأن السبب كي رسولك مدعين كي أبو بكر مدعين عمر بارك دات كيوه رسول حيل عمر كويش تلاقي متهم كنت عسنا يا بس لا تصدح بان كفر وحبذ القصة قاضية صدح بان فرتها وصدح حديثه إنه محضر نعمله يرهيو إن لقوا عياره هديت والقول دقوندي هديت فقادي ما يقاتلون إذا وقع إذا قال ثلاثا يقع ثلاثا أوكي إلا ابن تيمية يمدي ابن تيمية وحو أركي ساقونا دادكي مركز الدين بيبال هايانه كوو كسي داري بوارك وقريه ودمي وفريال ملح الله صلى الله عليه وسلم وبطكي وبيش كورنت حرية مسألة ده كعلنا في عصر الرسول في عصر أبي بكر وفي روح القرآن كنا واصلة وحكم مقتل الطلاق مرتان فإمساك معروف أو فإمساك فأذاك مقتل وكي محمد كيدي الطلاق الثلاث لا يقع وإنما يقع واحدة مد قرآن عايز أوكي جميع المحاكم كمحكمة الدوق الإسلام كردن انتو ذا أقول بدن حقيقتين رأيك ابن تيمية oo khilaafsan madaahibtii afartayd mid kale aan ugu daraya waxyaalada ibn Taymiyyah lagu xidhay ku jirtay ibn Taymiyyah maalintii maxkamadda la keenay culimadu waxay dhahdeen khalafa al-jumhur oo muxuu khilaafay wuxuu ku leeyahay weydii dalaaq salaas badacay iska adka sheekh cajiib ah war ka soo kama soo noqonay xabsiga lagu dhigay oo ku dhintay xab ku dhintay ما في سجن انت ابو كحنانا هذا الرأي الآن أمة الإسلام كيف بادسوا وحقاتي على الإسلام يوردن حلو قاتي baarlamaanadii baa saxaxay inay taasi tahay okay waxa kale oo kamid ah gabadheer imika sheekh waxay noqday gabadheer mal meherin karam loo meherin karo wala meherin kara laakiin culamo qabtaa jirta in la meherin karin dawladii maxay rajaxeen inaan la meherin karin gabar ka yar 15 sano amba 14 sano okay waa lagu qoray marka baarlamaanka uu saxay oo ogolaaday saas soo sharciyada ka baxayn ومدحويننا مركب وركتها أوتك تسمعها أو توقيعي وأمرك يبيح كذا إذا قاديو مركب محوك شقينا يا هذا يرى لو يتجربوا كي تقبل بجوسنا كتير قاديو محوك قرنا هذا الأسكان نقو بجوس اللي سيده وهو هيستا قرار دولة دي كصوب حي أو نهاية كبر ير لما
lama guursan karayo. Okay, markaasi sheekhu muxuu yidhi markaa laa yajuusu an yaxkuma in lagu xakumo bira'yin aakhar lama ogolo hadduu isagu xakumo. wahada maa jaa fi lmaadati, taasina waxay ku imatay maadada 100,801 oo ahay majaladii axkaam cadliya. majalatu alaxkaam alcadliya iyana xasuusina maxay ahayd dowladda cusmaaniyadda xeerkii laisku xakumay weyaan oo loo dhiga si qaanuuna taqniin la sameeyey. okay, sheekhu muxuu markaa wakadalika sidaas oo kale low sadara hadduu soo baxo alamru sultaaniyi amar madaxweynenimo ama amar boqornimo ama amar sultaan bilcamali in lagu shaqeeyo waxay ku qoran tahay waa majaladii waa artikala bira'yi mujtahidin ra'yi mujtahida fi mas'alatin mas'ala haddii madaxweynuhu qaato yidhahdo lagu shaqeeyo ama dowladdu qaato kaabaa lagu shaqeynaya. limaada u macnaya liannahu markuu qaadanayo wuxuu eegaya ra'yuhu binnaasi arfaq. markuu labadii eegay aaraadii culimmada kii bini aadamka u yaro fiicnaa ee dadka kala wadayay labada ra'yi ee sheekhada yuu qaatay matalan arfaq buu qaatay walimaslaxati alcasri awfaq amba waqtiga isbedilaya yuu aad ula socdaa. falaysa lilxaakimi haddaba qaadigii uma sugno an yaxmala inuu ku xakumo bira'yi mujtahidin aakhar yukhaalifu ra'ya dalika almujtahidkii uu qaatay dowladdu ay qaadatay. waidaa camila hadduu ku shaqeeyana laa yunafadu xukmuhu xukunkiisi maa la hirgelinaya may shaabadii laguma dhifanay xukunkiisi. وعلى هذا سيدا درادد وبناء على هذه المادة iyo maadada anagu ku shaqeynaa waxaan dhahaynaa buuri idaa xakama alxaakimu bima yukhaalifu ma amara bihi sultaan hadduu qaadigu ku xakumo wixii khilaafsan dowladdu waxay qaadatay suma rufica xukmuhu ilaa xaakimin aakhar xaakim kale loo xakumiyo xukunkiisii wajaba calayhi an yanqidahu uu burinaya eeg lianna waxaa yidhi halkan buri baa taala buri baa laga yidhi amar buu haystaa. okay, ma fahmi markaas. okay, tanna intaan ka macnayn kana ka macnaa waqtigu aadito madaxu nagu haya. qaacida labaad intaan ka sheegnaa sheegnaa. okay, qaacidadan xagga waxaan ku dhameynay maxaan oranay qawaacidda culimadu isku waafaqsan tahay waa mise qaacido ee asalka ah asaasku waa 5. okay, qaacidadii koowaad baan dhameynay ee ahayd al-umuuru bimaqaasida wixii hoos imanaya dhameynay. waxaan bilaabaynaa qaacidadii labaad waa kan اليقين لا يزول بالشك. اليقين maxay gartay waxa la hubo لا يزول kuma zuulo لا يزال ولا dhada labada la isticmaala لا يزول iyo la ya يزال okay ikhwani في الله قاعده intaan gal maanta waxaan rabacinayaa si aan u macnayno mas'aladan مسألة كذا سيجي تاتوكل إن شاء الله تعالى. أوكي إخواني في الله، مسألة ما حواسي منها يقين، درجات العلم ذا الظن يا الله وصمها، وحواسي منها يا الشك الوهم. أفرتها كلمة حفظنا. أوكي يقين أو حلو كرسويه. درجات العلم درجاتك aqoonta markuu qofku inuu wax ogaado doonayo iyo culumada dhigaan culumada mantiqa culumada fiqh way dhigaan waxay dhadaan waa 4 darajadood. okay waxa ugu sareysa waa yaqiin. yaqiintu waxa weeyaan ما لا يحتمل النقيض بوجه. أرنت أد استراحة وأرنت ويجرتها وحكسو هرجيدو أو كاعلين يني واحد جرت ما جرتو. تمام هذا يقين بعد هذا علم اليقين. مثال بين السنة وحال جاي مثلا روب باكد أيام مقالة أوتاوا برف بعد أيام مقالة أوتاوا قول كل جرتها إذا عندنا مدرسة سنة سيد لكن قفت كرسوني في عن كل هذا وصل والله إني كان بيان ما شاقو يا كوسو قولوا حكاية روب بداية برفنا وداية. أوكي نكاسة وحي وكوشاقي وحي كوسينا سا مالو حوق بدن إنه روب دايو بينكم متقاند لكنه شاكرا هو استاذ بينكم متقاند لكن
sheegi karaa u khaldami karaa kasoo qab sheegana u khaldami karaa okay waad baxday waxaad aragtay barafkiyo daaya maxaad aragtay marka maxaa jira agtaada yaqiin baa jira okay waxaa laga yidhi taa waxaa yaqiin waxaa laga yidhi hebel magaalada u yimiday oo taa uu soo galay caawa hebel waxaa kaa yidhi 2 nin 3 nin 4 nin ku kalsoon tahay waanad filaysa inuu imanayo mas'aladaas waxay madaxa ku abuur waxaado mala xoog badan inuu hebel joogo magaalada daliilka waxa dhada dannun maxaa dhada raajix waa danni waa malo raajixa waa badi diinta ku shaqaysana imika maalan maalig markuu mas'alad sheego oo axmedna mas'alad sheego labadanba waxay sheegeen mas'alad danni ah kana malu sheegay laakiin daliilka axmed hadduu bato muxuu noqonayaa malo muxuu badanayaa raajixa kana wuxuu noqonayaa malo muxuu noqonayaa marjuuxa lagu xoog badan yahay okay tii saddexaad waxa weeyaan waxaa la dhahdo wahmigu waa maxay waa 2 shay nin baa kuu soo galay wuxuu kaa yidhi waad ogeed inuu imanayo hebel soo socdo oo magaalada soo galay wuxuu kaa yidhi hebel uu ma soo gelin yuu kaa yidhi qaad eegta ninkii wallaahi ninkan waa maqbuul waa la aqbali karaa nin kaloo isna la aqbali karaa ku yimid wuxuu kaa yidhi hebel tii cagsiga kuu sheegay maxaad markaa agtaada yaala 2 ra'yo iska horjeeda laakiin isku miisaana shaki baa gashay markaa kana ma qaadan kartid kana ma diidi kartid waa shakida hada sama shaki alwahmu wahmigu maxay imagination waa maxay waxa weeyaan waa arin ya labadan lagu sheegay ya ee uu ka yiri uu jira mid baa sareeya oo maxaa sareeya waxaa sareeya ma yaxtamilu naqid cidrisa maca almarjuuxiya waxaa leedahay wallahi wuxuu hebel kuu sheegay okay way dhici kartaa laakiin ta kale uu hebel kuu sheegayna way dhici kartaa hase ahaatee hebel baa ya hebel ka fiican mi wallahi ka shakigiiba kasii dhadhacdo waxay noqotay waxaad adigu meelaad geyso xatana uuna jirin oo adu aad tasawuraatiyanaysid waad maraysanaysaa okay waxay dhahaan culimadu wahmiga iyo shakiga waxay ku daraan jahliga maaha culum cilmi maaha waa maxay waa jahliga laakiin dannigu waa cilmi waxaa dhakhtaradu maanta ku shaqeynayna maxay waa danni aan malo weyaan laakiin waa malo cilmi ah waxay ku shaqeeyaan injineeradu iminka maalan markii jiilaalku bilaamayay maanta aan uga soo sheekeynayay wadaad soo waday waxaan idaacadaha ka dhageystay sanadkan barafka di'i doonaayey wuxuu noqon doonaa mid aan weli ka di'in wadanka ilaa iyo 70-nadii okay masaladaas waa maxay masalo cilmi ah waa saynis laakiin waa maxay waa danni waxbaa la isu geeyey waxbaa la isku xisaabiyey waa la yidhi okay weli haddaana baraf maanta bilaamay barfma jirin baa yaadhbaa okay maca daalika wuu dhici karaa barafka ay sheegayaan wuu soo socdaa inuu dhici waayana way dhici kartaa walidaalika waxaa la dhahdaa cilmiga sayniska dhahdo qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad bilowgiisii uu qooqanaa wax walba inay garteen bay u haysteen laakiin wixii ka dambeeyey 80kii ilaa imika waxaa dhahdaa cilmigu uu caqliyey cilmigu lamanka dhalinyaro isba ahay uu qooqanaa laakiin imika uu caqliyey cilmigii wuxuu soo noqday xadkiisii walidaalika muxuu dhahdaa markii idaacada ka sheegay markuu berito roob yutawaqac waxaa la filayaa awal maxaa la oran jiray beri roob baa da'aya okay imika yutawaqacu waxaa la filayaa okay cilmigii baa gartay xadkiisii buu gartay yutawaqacu buu soo ya dhakhaatiirtu boqolkiiba 30 waxaa waa haya boqolkiiba 40 waa sida nada ka dhaqaatay waxa ku ornayaan waxay u badan tahay ba ku jirta khaladaadka taxwiil waxaa jirta ibn qayyim wuxuu ku baaray kitaabkiisa diib nawawiga dhakhtarada markaa u tagaysiin habadin dhakhtarada anagu taa waan khilaafnaa dhakhtar un yeelo ibn qayyim baa ku taliyey wuxuu yidhi ikhtilaafu al-atibaa'i calayka ka ikhtilaafi al-mujtahidiina calayka haddaad dhakhtarada badisida waada wadaadada badsaday haddaad 9 wadaad qaadan 9 ijtihaad baa kusin maaha dhakhtaraduna way ku weerarinayaan lianna waa ijtihaadi wax ku shaqeynaya kuba ibn qayyim saabudi iyagu cilmiga horba gaadhay maanta masaladii baa la qaatay walidaalika waxaa leeyahay doctor yeelo
كائن آمن halkan hadda waxa ka dhacsan muxuu ahay second opinion ama third opinion inaad qaado dhakhtar inaanad mar quraata ku ekaado oo مثلا dhakhtar wax kugu sheego ku dhaho xanuun caynkaas ah waa inaad ku kalana eegto ma garanayso waan gartay marna isku imaajinayaan kan maya mas'aladu markay tahay amraad khatara markay tahay oo laga hadlayo cancer iyo laga hadlayo maxaan ku idhahdaa cudurro halisa yani yaqiin aan raadinaysid ninkan ra'yi buu kuu sheegay 3-4 baad biirsan karaysaa hadday markii isculaysiistaan masaladii waa qaadanaysaa hadday iskhilaafaanna dee khilaafka caqligaad ku daraysaa intaasoo dhan marka insha allahu tacaala okay marka waxaan uga jeedo inaan intaa aan ogaano qaacidada markaa yaqiin laa yazuulu maxaan dhahnay bishaki weeyaan marka insha allahu tacaala اسبوع صوص عن سيفي عن قلنا قاعده والله تعالى اعلى واعلم وصلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين